madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Deeni ayaa aqalka madaxtooyada kulan kula qaatay qaar kamid ah siyaasiyiinta Puntland bulshada rayidka ah guddiga doorashooyinka Puntland wasiirada arrimaha gudaha iyo tamarta macdanta iyo biyaha kulanka ayaa looga hadlay guud ahaan xaaladda Puntland gaar ahaan dardargelinta hanaanka doorashooyinka Puntland ee hal qof iyo hal cod sidii loo dhameystiri lahaa golaha deegaanka inta ka hartay gudoomiyaha guddiga kumeel gaarka doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Siciid ayaa madaxweynaha iyo bulshada rayidka ah la wadaagay warbixin guud oo ku saabsan halka ay marayso shaqada guddiga doorashooyinka waxaana uu madasha ku soo bandhigay warbixin dhameystiran taasoo iskugu jirta waxqabadka guddiga qorayaasha iyo fursadaha hadda ee ku aadan sida dadka reer Puntland diyaar ugu yihiin hanaanka asxaabta badan dowladda Puntland waxaa ka go'an hirgelinta hanaanka dimuqraadiyeynta dowladda Puntland ee hal qof iyo hal cod sanadkii tagay ayaa waxaa lagu guuleystay hirgelinta isku daygii koowaad tijaabada 3 degmo taasoo dadweynuhu soo doorteen xildhibaanada golayaasha deegaanka ee degmooyinka eel Qardho iyo Ufeen waxa dhammaan degmooyinka Puntland laga qaban doonaa doorashada golayaasha deegaanka guddiga ayaa dhawaan bilaabi doona diiwaan gelinta dadweynaha waxaana hadda si habsami leh uga socota wacyigelinta dhammaan gobolada iyo degmooyinka Puntland ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Deeni ayaa dhageystay aragtida ururada bulshada madasha ka qayb galay sida kale waxa uu sheegay in dowladda Puntland ay ka go'an tahay hirgelinta hanaanka Puntland u gurtay ee shacabka ku soo dooranayaan madaxtooyada